السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك كلنتي وناكسن أصحابي ميل كستود نقا داوريسان كسور دوادا برنامج كينا لباد مانتا او مالين نمو 4 مالين عيدة تاريخ دورا ايتاي تضبية لباتك بشا مي سنة كان لباكون يلحيا لباتن برنامج كونا واكيل لباد قضبادا برنامج كانو دي كوغسو قدبنا ينوحا كمدا war goordhow ka yimid magaalada Tahraan ee caasimadda dalka Iran ayaa sheegaya in dab xoog leh uu ka kacay airportka Khomeini ee halkaas haddaba sababtu maxay tahay wararkii ugu dambeeyay cidda gubtay iyo sida xaalku yahay ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa ciidanka ilaalada kacaanka Iran oo goordhow faahfaahin ka bixiyay arrimo cusub oo ku soo kordhay marinbiyoodka Hormuz وعشو كلا عن دين هينا ترام أو حكومة ديسا كلامو مهمة أو أريتا إيران كسابسن لله إيو ورركي وقدم بيي دقال قرار أو كدح سعودة حزب الله إيو إسرائيل قضبضا سينو برنامج كان اللبات كفا فاهنينا انت أنكو جرننا وحي أخبار إيو سوكرنا واني دي لسعود kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni labaad maanta waa maalinimo Arbaca mar kale waxaan idin leeyahay ciid mubaarak taariikhdu waa 27 May wararkii soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa arrin muhiim ah oo ku saabsan marinbiyoodka Hormuz haddaba ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa goordhow faahfaahin ay ka bixiyeen xaaladaha ku soo kordhay marinbiyoodka Hormuz waxay sheegeen warar la isla dhexmarayay oo sheegayay in maraakiibta Mareykanka laga yaabo inay maraan marinbiyoodka Hormuz way diideen ciidanka ilaalada kacaanka Iran heshiis kastoo la gaaro nimanka inay meesha soo maraan lagama yaabeen ilaa wax badan la isla meel dhigo ciidan badan badda ii fadhiya diyaarado badan aan haystaa maraakiib oo diyaaradaha xambaaraan wataa waxaasoo dhan adeeg u taala meeshaan markaba leedahay ma soo mari karaan oday edabtaasa la sii macalinka weyn oo la edbiyey ka waran meelaa la saaray ilaahay ugu og meelaa la saaray waa la yaabay nimankii Iiraaniyiinta waxay leeyihiin wallay ka tahay markab cadowga meeshaan ma soo mari karo Mareykanna waxa maraakiib u dhooban Hormuz iyo hareeraheedu waa yaabaysaa markab ganacsi uu leeyahay xataa ma soo mari karo meesha wax la yaab la soo baa Iiraan marka gacana loo taagay markii uu lahaa ninkii professorka bil ka hor aan halkan idinkaga soo gudbiyay Mareykanka uu lahaa waa القوة الرابعة معناها أود أفراد نقطة إيران أدونك أودها لقيمة يو مركا لغا صوتاقو مريكان يا روس يا تشاينيس نمبر 4 نقط نمكي نمبر 1 مال اسكساري ما يغا سهلا مركا شاكدو عادي ما هدوا مركا ردي تصورركي وقدبي ورقيس كلا يرادو رأيو اليوم أيا قوردو قري وربحن أولياي إذا كإلالة كعانك إيران وحي شاقين in marinbiyoodka Hormuz aanay wali ka gudbi karin dawladaha ay ku tilmaameen cadawga maraakiib ay leeyihiin inaanay halka ka gudbi karin dhanka kale waxay sheegeen ciidanka ilaalada kacaanka Iran iyo wadanka la yiraahdo saldanada Oman inay iyaga ka shaqeynayaan hawlo cusub oo ku saabsan sidii ay markaa maraakiibta halka marayso iyo wixii ay wada shaqeyn lahaayeen Iran waxa kaliya ay wax u ogoshahay marinbiyoodkaas inay tala iyo hadii xogaa la qaado xogaagooda la sii waa Oman laakiin Imaaraad iyo Qababac iyo waxaan kale wax soo dhawaa kara male marka waxay leeyihiin sheekooyinka suuqa la gelina Mareykanka halka mar raba iyo ma jirtay leeyahay maay dawladaha cadawga yiraahdeen dawladaha cadawga Iran ku ah meeshaan bari karaan yaa cadow marka yaa yaqaan meeshaan Mareykanka Israa'iil la yaqaan laakiin kuwa badan oo cadow ay u aabisantahay maartay Iran ayaa jira marka hawshaas halka mar waxa kidoo xataa soo kordhay baata safiirkii Iran u fadhiyay magaalada Seoul koonfurta Korea loo yeer waxa la dhimayo maalin hore markab Korea leedahay gantaal ku dhacan baarnay waxaan soo ogaanay gantaalkaas inay Iran soo rid ورا أنا شكلها أنا قلت تقول أنا نقول مالين أنا كوريا واحد أنا ما أنا يدي سو جود بله ما بيدي سو جود بالمركب كده وحياتها قنتال كان كله فرد
sheekadaasa marka iyaduna kuuriyada koofureed iyo iiraan iyaduna ka dhex jirta saacadihii lasoo dhaafay. marka qodobka halkaasaan kaga gudbaynaa. sheekada kale ee soo korortay waxay tahay eeraboorka weyn ee caalamiga ee magaalada Tahraan ku yaala ee la yiraahdo Khomeini ayaa waxaa la arkay saacada ka hor dab xoog leh oo ka kacay eeraboorka. kooxihii dabdamiska iyo wixii oo dhan tagay halka ilaa hadda waxaa socda baaritaan dabkan maxaa keenay, yaa meeshan gubaya. hadda ka horna dabaa kacay sidaas oo kale eeraboor kale maharabaad mu ahaa. marka eeraboorradan cidda gubaysayay tahay. marka sheeko waaliya marka socod. haddaba markaan idintu soo warkii ugu dambeeyay Al-Jazeera waxay leedahay war cusub oo soo dhacay wuxuu sheegayaa in dab xoog leh uu ka kacay eeraboorka la yiraahdo al-Imaam al-Khomeini oo ku yaala magaalada Tahraan. wakaalada wararka Iiraan ee la yiraahdo Mahar ayaa sheegtay in dab xoog leh uu ka kacay halkaas, waliba qaybta canshuuraha ee eeraboorka uu ka kacay Imaam al-Khomeini. waxaana la sheegay ilaa hadda sababta inaan la garanayn oo hay-adaha ammaanku ay baaritaan xoog leh ku wadaan. marka waa wax soo noqnoqonaya. hadda ka hor toddobaadyo ka horna eeraboor kale la gubay sidan oo kale. isla qaybta jamaariga la gubaya. jamaariga waa qaybta canshuuraha iyo waxa kan iyo alaabta iyo waxaas la gubaya. haddana qaybtan marka hawshaas iyaduna waxay soo wararka soo kordhay ka mid tahay. ninkii Trump aha maanta wuxuu wada hadaloo la leeyahay xukuumaddiisa arrinta Iiraan oo ku wareeray odaga meel kasta waa ku wareeray. Netanyahu meel uga dhagan yahay, ciidankiisa iyo la taliyaashiisa meel uga dhagan yahay xilliyo dagaalkan Farahan kala bax. haddii kale kii aan ku hoogi lahayn waayo. qolo kale oo xisbigiisa jamhuuriga ka socota iyaduna u imaanaysa waxay leedahay inuu dhageyso dagaalkan xildhibaano badan ku weyneynaa November doorashada baarlamaanka ka dhici doonta Mareykanka. baarlamaanka kuraas badan haddaan weynana awood ma yeelan doonto. marka sheekadaas aga dhaxbax oday marka waa wareere meel kasta baasho looga keenay. hadda Iiraan baasho iska soo wareejisay uraniumka China u geenaynaa, laakiin damaanada China ina aqbashid waay. heshiiska aan galno sidee tahay loo fuliyo. annagu Iiraan xor u noolaano marka ma ogolaana Mareykan. Iiraan oo nidaamkan weli ka taliyo sidee loogu ogolaana inay xor u noolaadaan sida wadamada kale oo kale. Israa'iil ma ogolaanayso. Israa'iil oo ninkaan ku daaban marka meel oo baasha uga wareejiyo laay. marka asagii hadda dhexdhexaadayaashu ka warsugayaan waxa la Iiraan waa ka soo dhabaanay adaa laga rabaa. marka baanta wuxuu kulan muhiim ah la leeyahay xukuumaddiisa. kadib waa arki doonaa waxay soo saaraan. haddaba marka wargeyska la yiraahdo Al-Quds wuxuu leeyahay Trump wuxuu la kulmayaa xukuumaddiisa si uu markaa ay u yeeshaan wada hadallo ku saabsan sidii loo dhamayn lahaa dagaalka Iiraan iyo Mareykanka u dhaxeeya, sidii markaa heshiis loo gaari lahaa. meel uu bahasha ka bilaabo odog ilaa lagu leeyahay. nin walba meel uu ka haystaa. Israa'iiliyiintu meel ay uga dhigeen Netanyahu kooxdiisa kooxahan kale gudaha Mareykanka rafada haysta. marka kulankii socda wixii kulay ka soo baxa barnaamijyada dambe ayaanu ku soo qaadan doonaa. dhanka kale dagaal aad u culus ayaa socda koonfurta Lubnaan. dhanka kale waxaa la sheegayaa diyaarado drones oo tiro badan maanta in lagu weeraray Israa'iil meesha la yiraahdo jaliilka galbeed, jaliilul a'la meesha la yiraahdo jaliilka sare iyo dhulkaas oo Israa'iil ay xoog uga haysato Suuriya oo saldhigyadoodii waxooda ku yaalaan ayaa maanta si xun loo duqeeyay oo diyaarado drones lagu garaacay. hadda marka iyaguna waxay soo qaadeen weeraro dhinaca cirka ah ayay Israa'iiliyiintu soo qaadeen. haddaba telefishinka Al-Jazeera wuxuu leeyahay weeraro isxigxigay ayaa lagu qaaday Lubnaan. Israa'iil waxay qaaday weeraro iyadoo weerarkaasi ku beegsatay magaalooyinka la yiraahdo magaalooyin ku yaala koonfurta Lubnaan. sida uu ku soo waramayo wariye ka tirsan telefishinka Al-Jazeera ayaa sheegay in weeraradaasi lagu bartilmaameedsaday magaalada la yiraahdo An-Nabtiya iyo magaalada kale la yiraahdo Carimti iyo Maliikh iyo Kafarjoon iyo Shawkiin iyo Xabuush. intaasoo magaalo ayay waxay ku duqeynaysaa diyaarado Israa'iil si ay markaa uga hortagto weerarada isdabajooga ah ee Xisbullah ay soo qaadayso. nimankan marka koonfurta Lubnaan meelay dhahaan dadku isaga guura
iyo meel ay duqeeyaan weli marka xisbullah soo taagay ilaahay amarkiis awla waxa lagu heshiiyay Mareykanka iyo waxa kan lagu heshiiyay inaysan Beirut iyo magaalo kale u gudbi karin Israa'iil xisbullah intee joogaan oo kala dagaalamayaan koonfurta Lubnaan duqay koonfurta Lubnaan say u lahayd ka guura magaalo hebel dadkan guura say u lahayd dadkii waa isaga guurayaan xisbullah way soo taagantay gantaalka iyo drone-iska halkaan ka imaanayaan waxna waa laga qaadi lahay marka arrinka isaguna wararka soo kordha ayuu ka mid yahay haddaba dhammaan waxay warbixinada soo kordha waa arki doonaa haddaba qadar xayeysiisa kadib intaanu ku jirnay barnaamijka wixii akhbaar ay soo dhacay ayaanu idinla wadaagi doonaa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay barnaamijkeena labaad haddaba qaybtan waxaynu kusoo qaadanaa akhbaar wixii soo dhacay intaanu ku jirnay haddaba kanaalka la yiraahdo 12 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa hadda dhow hadlay barnaamijka kii koore waxa ku soo qaadanay Mareykanku inay yiraahdeen hal sanadkan inta ka dhiba diyaaradeena waa yeelayeen waa qayliyeen Yahuudi waxay yiraahdeen shirkadii diyaaradaha meel ay diyaaradeena baarkin ku galayaan male diyaaradii xataa Israa'iili maanay meel ay ku nafsanayaan male Mareykanka meel walba isku fidiyay diyaaradiis waatii Mareykanku ay yiraahdeen inta wax ka dhiman hadda marka wuxuu leeyahay kanaalka 12 saraakiil Mareykan laga soo xigtay hadii dagaalka Iran lagu heshiiyo oo heshiiska la dhameeyo inuu Mareykanka diyaaradiisa qaadan doono heshiiska goormu dhamaana marka ma bil kadib laba bil ma haduu dhamaana lama yaqaan marka wuxuu leeyahay ilaa Iran aan kala heshiinayno diyaaradahan booyadaha ee shidaalka qaada meesha noo saflaayeen marka meeshaas xiisada ka taagan eeraboorradii waaweynaa waliba eeraboorkii Tel Aviv ee Ben Gurion ayaa xarana leh qayb dhan Ameerikaanku u xareeyay marka hawshaas halkaas ay maraysaa wararkaas ayaynu ku soo qaadanay barnaamijkeena labaad waan filayaa barnaamijkii koobaad warar xiiso leh ayaa ku jira isaguna inaad ka faa'iideysan doontaan mar kale waxaan idin leeyahay meel walba aad naga daawanaysaan ciid mubaarak asxaabay inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo